الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ayaa waxa uu inoo sheegay saddex mashhad ama saddex xaaladood oo qofka bani aadamka ahi waxshada ugu badan uu dareemo macnaa uu dareemo inuu yahay mid cidlo jooga oo bimacnaa aan wehel lahayn saddexdaasi xaaladood xaaladda koowaad waxa ay tahay marka uurka hooyadii uu ka soo baxo ee adduunyadan uu yimaado meel aanu garanahayn buu yimi qofkii bani aadamka ah wuxuu dareemayaa waxsha dadkan intuu la qabsanaya ayaa muddo ku qaadanaysa laakiin waanu cabiri karahayn yaraantiisa awgeed xaaladda labaad waxay tahay habeenka u horreeya la aasee qabriga la dhigo waxshuu dareemaya caalamkii uu joogay ee uu la qabsaday mid aan ahayn buu u guuray qofkaas wuxuu la jaar noqday dadkii uu la jaarka ahaa dad aan ahayn buu la jaar noqday xaaladda saddexaad waa marka qiyaamuhu dhaco ee ilaahay subxaanahu wa tacaala la horgeeyo waxaanu weligii arag oo aanu sawiranahayn ayaa qofka bani aadamka ahi u arki doonaa walihaada waxsha ayuu dareemayaa maxaa lagaga badbaadayaa saddexdaasi mawqif ee aadka iyo aadka u adag nebiyullah yaxya ibnu zakariya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday isagoon dhalanba saddexdaasi dhibaataba isagu inuu ka badbaadi doono wasalaamun calayhi yowma wulida wa yowma yamuutu wa yowma yubcathu xaya saddexdaa xaaladoodba isagu waa ka badbaadi doonaa dhibaatada waxa uu kaga badbaadayaana waa salaax waa hagaag iyo istiqaama iyo toosnaan marka haddaad doonto xaaladda qofku marka uu dhintay qabriga la dhigo dhibaatada iyo cidlowga uu dareemayo iyo marka qiyaamuhu uu dhaco ee ahwaasheeda iyo dhibaatadeeda uu arko inaad labadaa xaalood dhibka ka badbaaddo haddaad doonto facalayka biالsalaax wاlistiqaama والتزود للآخرة صلاح لقاه له حقاق يتوصنان يا آخرين أبو صاحي قادته